shirkadda Al-Nuur Al-Mustaqim ee fadhigeedu yahay magaalada Dubai isla markaana daadguraysa alaabaha loo iibgeeyo dalkeena Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen doonidii dhawaan ku qalimantay xeebaha dalka Imaaraadka Carabta doontaasi oo lagu magacaabo Saabir Biya ayaa waxa ay u rarneed ganacsatada Soomaaliyeed ee shixnadaha kala duwan u iibgeeya dalkeena hooyo gudoomiyaha shirkadda Al-Nuur Al-Mustaqim Maxamed Xuseen Dhiblaawe ayaa baaritaano dheer kadib sharaxaad ka bixiyay sababaha keenay inay doonidaasi qalimato. waxaan jecelnahay inaan halkan kala socodsiino arrin dhacday oo musiibo ah arrintaas oo ahayd doon la yiraahdo Saabir Biya oo ka diiwaan gashan Hindiya oo nambarkeedu yahay registration number 1418 oo laga raray magaalada Dubai kuna socotay Muqdisho iyo Kismaayo dad badan oo Soomaaliyan ay hanti badan u saareed oo lagu qiyaasay lacag ku dhow $2 milyan ayaa waxay ka bacday 4 bisha meesha la yiraahdo Dubai dekadii laga raray galabtii 10 saac markay ahayd saacadu ka bacdina habeennimadii 8 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxay ku degtay meesha la yiraahdo Raasul Khayma isla biyaha Imaaraadka waxaan ugu soo wargeliyay 8 saac bar in shil dhacay oo ayada iyo markab ay isku dhaceen doontii arrintaasna wali baaritaankeedu waa socdaa markabkii iyo ayada macnaha isku dhacay kulli dawladda gacankooda waxay ka soo baxana waa arki doonaa dawladda Imaaraadka laga soo warbixintaas insha Allah taala waxaan marka jecelnahay inaan ogeysiino dadka walaalaha oo Soomaaliyeed oo wax saaray in Ilaahay sabir iyo waan siiyo bedel qaaran Ilaahay naga siiyo kulligan waxaan kaloo jecelnahay inaan ogeysiino dadka naga maqan oo wadanka jira oo ama alaab loo saaray oo inta looga diray waxa ku sugayay ama inta saartay alaab ka tagay oo aan ogeyn gadaashooda arrintan ka dhacday in ayaguna ay ogaadaan تحسين أو أدرينا دم. والله لي الواسطة هذا المغلي سنة الله شيء دبك ساسو دعي. أولا هرتد ضد مسلمين عن هاي حلو بهاي إن أنه هاد إلهي سبحانه وتعالى قدرتي سكو صبرنا مالكنا إلهي سبحانه وتعالى ونسي هذا إن شاء الله ونسين دونا وحول بنا ودعي يعني قفكم بركو حبي بيئها بالحكومة وحكستا إلهي سبحانه وتعالى أيها الدون كانوا نبوحوا أبو ري سيدة امتحان كاد قف كوباسون بان آخرين الليبانية مركا دادك مسلمين تهورتا ميلك سويتشون نبكو قاري وحانو دردار من الصبر يا إيمان يا إلهي سبحانه وتعالى إني أجر حساب سان ميد اللوادنا وادبعوا لسو قاري ومد الصوماليات إن بدنو كميدا أو هاد مساكين وهو قرب ررتا أهيد dibkaasoo dadkii dalka ku soo noqonaya naga horeeyay baa warkii oo dhan wada sheegay marka ugu horeeyda waxaan u dardaarmayaa saaxiibadii badnaa ee faraha badnaa ee lacagaha badan iyo maalka badan uga lumay ilaahay inuu bedel khayr qabo siiyo waxaan aan dhihi lahaa waa inaad isku xirnaataan oo aad isu timaadaan oo aad iska cansiidaan sida Abduqaadir Axmed Sheekh raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Dubai.